السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت بدن عافيمات تاما نولل وناكسن يا فرحات باندين رجينيا نينكن وأهدتك آدك وقحرا مقالدين إسلامر كان سؤالك استين سو ويديا وسيتو صمر كست سؤالها ينو سو ويديا أيا وحا ويري وحان مقلي دادك سيغيستا إن أنا حلال كدالان أو ودا حلال أنا كدالان sidoo kale waxaan maqlay buu yiri dadka siigaysta qudhooda in siigada lafteeda la kala dhaxlo oo xagga waalidka ay ka iman karto arintaasi ma waxa ka jira mise waa arin aan markaas la yaraad lahayn aad uu mahadsan yahay adeen ku soo dhawaano aragtida noocaasa ee aaminsan dadka siigaysta inay marka hore sifo qaldan ay ku dhasheen oo aanay ahayn dad markaa xalaala waa arin gabi ahaanba qaldan sidoo kale siigada in la kala dhaxlana waa arin qaldan siigada lama kala dhaxlo waxyaabaha la kala hidaysto maaha hadaynu ku soo dhawaano arinta kale oo uu kaga dhawaajiyay ee xagga hore uu ku sheegay ama su'aashiisa hore dadka ku siigaysta waa dad sifo qaldan ku yimi ama markaas sifo xaaraana ku yimi oo meher xalaala aan ku dhalan aragtiyaha dad badan baa aaminsan sidoo kale dadka siigaysta dad ay ku dhacday oo la ileeyay dad baa aaminsan dadku aragtiyo kala duwan bay ka aaminsan yihiin arintan aadka u foosha xun ee dadku ay sameeyaan qaar kamid ah hadaba aragtiyahaas si u badan yihiin waa priceless waana wax aan caafimaad ahaan aan saxsanayn siigada qof kasta ayaa ku dhici kara waana dambiyada dadku ay galaan kamida loomana astayn karo waalidka iyo dadku meesha ay ka soo jeedaan loomana astayn karo waxay kala dhaxleen ama waxida loomana astayn karo xanuun waxa soo dhan looma sababaynayo waa qalad qofku shakhsiyadiisa uu galay shakhsiyadiisa aanay ku koobantay cid kalena uma gudbin karo isaga iyo naftiisa ayay ku koobantay waa dambi isaga uu ku kooban laakiin kullu naasu khada wa khayra khataa'una tawaabun insaanku dhamaantood way qaldamaan laakiin kuwa qaldama ee ka soo laabta ugu khayr badan marka qofku inuu ka laabto isla markaana uu ka doobad keeno oo uu ka qoomameeyo ayaa wanaagsan ee laakiin qofku inuu waxyaabo kale ama sababo kale u raadiyo waa mid kale oo iyaduna qalad kale oo qofku sii galayo weeye aragtiyahaasi waa aragtiyo gabi ahaanba priceless waa aragtiyo aan reasons culus aan ku fadhiin waa aragtiyo malaawaalo dadka qaar iska malaawaalayaan waana wax markaas iska beena ee siigada qofka sameeyo ayuun bay qaladkaas saaran yahay waana laga joogsadaa oo qofku marka uu sameeyo haduu ku dhaco uu iska dayn karaa uu ka bogsan karaa waxyaabaha xilliyadan dambe dhalinyarta ku ridana waxa kamid ah guurka raagay iyo sidoo kale qofka dhalinyarta oo waxyaabaha qaar daawada ama dumarka aan aad u asturayn taasaynu ku soo